mar kale subax wanaagsan kusoo dhawaada inta dhiman ee barnaamijka bandhiga waa 20 bisha koowaad 2019 qodobada barnaamijka aad daawanaysaan hadduu alle idmo waxaa ka mid ah khasaare intee la eg ayaa ka dhashay 17 bishan dab ka kacay xilli habeen ah suuqa ugu weyn ee degmada Afgooye. Cabdiwali online oo ah wariyaha telefishinka Universal ee jooga gobolka Shabeellada Hoose ayaa maalintii shalay tagay warbixintan ka diyaariyay. in ka badan 20 goobood oo ganacsi ayaa ku basbeelay dab xoogan oo xilli habeenimo ah qabsaday suuqa lagu magacaabo Hilwaaley oo ah suuq ganacsiyeedka ugu weyn ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dabkan oo bilowgiisii hore ahaa mid aan baaxad lahayn ayaa wax ka yar nus saac ku fiday goobo kale oo hor leh oo ganacsi, taas oo sababtay in khasaare baahsan uu ka dhasho. Waxaana gabi ahaanba basbeelay agabkii ganacsi ee yaalay dukaamada iyo baqaarada ee dabku uu saameeyay. Inkastoo gurmad aan loo kala harin ay sameeyeen dadweynaha degmada Afgooye, balse dabka oo ahaa mid xoogan ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay damintiisa kadib markii goobta uu soo gaaray gaari nooca dabdamiska ah oo shirkadda Hormuud ay ka soo dirtay deegaanka ceelasha biyaha. Hase ahaatee, arrinta lagama maarmaanka ah ayaa ah in degmada Afgooye ay hesho gawaari nooca dabdamiska ah si ay u fududaato wax ka qabashada masiibooyinka noocan ah. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada suuqa oo ka sheekaynaya baaxadda khasaaraha dabkan ka dhashay, iyo Cabdulqaadir oo ka mid ah dhalinyaradii u soo gurmatay ka qayb qaadashada daminta dabkan. ayaan xaafadan ku joognay dabka kiifiisa walciisa markaan la joogo weyn ayaan magaalada sidii aan u soo ararnay awtakan ka soo baxnay electric waxaan ka mid ahay ganacsatada oo aan nimanka suuqa badarka meelaas ka shaqeysto kadib markaan soo ararnay arkan lagu sheegay xaafad guulaysa arka waa la yiri artana ma ahayn kadib waxaad suuqii oo weynaa oo qudaarta meesha gubatayna waxa waaye waa suuqii ganacsatada nimanka bagaashka gada iyo raashinka baqaar weyn oo raashin lagu gado oo bariiska iyo burka iyo sokorta oo anti badan taalay oo shalay qaarkood ay soo adeegteen anti aad u tiro badan taalay antidaas oo ku baaqaday qolada elektrooniga gado sida soolarada moobilada iyo riyooyinka oo yani oo solarka lagu isticmaalo kuwa baabuurta iyo waxyaabaha elektrooniga jaarjarada oo kale waxay gado nimanka shalay ayay soo adeegteen anti badan ayaa ay soo geliyeen kadibna waxaan wax iska mucjiso waa amur rabbaani waa xalay si lama filaanayo dabkan u dhacay nin walbana goortuu hooyada oo gurigiisa tagay ayaa waxa la yiri meeshii waa guulaysaa qaar waa loo sheegay qaarna looma sheegin. Universal Cabdiwali online oo har iyo habeenba u taagan bulshada shacabka gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye oo hiil iyo hoob diyaar u ah. waa ku salaamay soo dhawow kullibo bal ka waran Cabdulqaadir khasaaraha uu geystay dabkan intuu la egyahay. niyahow khasaare aad u baaxad weyn ayuu geystay oo waa u jeedaa ishaada horta ku macallin ah maasha Allah saan ay tahay dabkan waa markii labaad uu ku soo naqanayo suuqa degmada Afgooye khaasatan waxaana markasta keenaya wadooyinkii oo cariiri ah dabeeshi oo kacday iyo dukaamooyin isku wada dhagan iyo meel loo mara aan lahayn wadooyinkii oo 24 saacba geeska gees jiq isku ah sida meel basiib camal ah iyo ayakiyo ka taxadiri waayay in lacala dab haduu kaco dabdamiskii xataa u soo gurmadi lahaa oo yimaado meel uu ka gala xataa uusan lahayn wadooyinkiina ishaada ku macallin ah kulliba dabka markuu kacana ninku u horeeyay oo baraha bulshada soo dhigay ee dhalinyaradii dhahay hil iyo hoo ayaa maanta ni laga baahan yahay fadhi ma yaalo ee soo kaca imaada suuqa ayaa gubtay mar alla markii aniga baraha bulshada markaan ka arkay ninkii koo soo kacay anigoo gudoomiye ururka dhalinyarada degmadii ah ma ogeen haddaad adiga wax noo sheegi lahayn nin ogaalahay horta ma jirin dabka intaan wuu kasii weynaa lahaa kadib ilaahay wuxuu xugmay inaan dhalinyaradii gadigaas iyo gadigaan xaawataako iyo dhagaxtuur aan iswada kaashano sidii aan intii dabdamiska noogu imaan lahay aan kusii gaarno laakiin waxaa isweydiin mudan magaalo gaariga dabdamiska oo ka yimid ceelasha biyaha bal ka war dhawaatada intaas la eg oo inta daqiiqo uu soo socday iyo khasaaraha dhashay iyo haddii Afgooye dabdamis aysan lahayn arrintaas soo dhibaato maaha Cabdulqaadirow. waa dhibaato aad iyo aad u weyn waana mahadsantahay inaan hadda ka hadla rabay maamul horta degmadan Afgooye degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose degmada u dhaqaalaha badan waay hal dabdamis ay sheegay 5 dabdamis way gadan kartaa
taasina horta waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada inay isku tashato ee debdemis noo keento ee meel dhigato oo debdemis ka imaanaya 30 kilomitir ama 15 kilomitir kan usukay ceelasha ah haddana ee leedahay shirkad Hormuud aana markasta la isku haleekin waa markii labaad laakiin Cabduqaadir ganacsatada ka sokow maamul ayaa ka jira degmada lacaga canshuuraha ganacsatada laga qaada oo habeen imaan ay bixiyaan haddana hataa iska dhaaf 5 xabbe hal xabal keen leeyahay soo arintaas dhibaato soo korortay Soomaa taas waa dhibaato soo korortay ayaka iyo dameer xumadoodii maamulkii degmada lacag uma yaro ganacsatada lacag waa laga qaadaa debdemisa sheegayay ambalaasyo degmada xataa way u goysaa laakiin hal fariinaan faranaya adoo raalli ah iga gaarsiina Cabdi Wali madaxweynaha KSG Cabdicasiis Maxamed Cabdi Xasan lafta gareen mar alle markuu noo imaanaya asigoona debdemisyo wadin yuusan noo imaanin inta as iga gaarsii bas madaxweynaha KSG ee Koonfur Galbeed dhowr jeer oo hore ayaa sidan oo kale dab u qabsaday suuqyada degmada Afgooye iyo xaafadaha waxaana inta badan markii ay timaado masiibadan oo kale bulshada ku adkaata hakinteeda Cabdiwali Cali online barnaamijka bandhiga TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose aad buu mahadsan yahay Cabdiwali online ayuu ahaa warbixintaasi ka soo diray magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose